ma ogtahay in hal cabitaan oo cabto maalin kasta uu maro nidaam warshadeed aad u adag isla markaana malaayiin dhalo la sameeyo saacad kasta Coca-Cola ma aha oo kaliya cabitaan waa mashiin caalami ah oo si sax ah loo xakameeyo haddaba aynu eegno sida Coca-Cola loo sameeyo iyo siraha dhadhanka ee Coca-Cola taasoo ay shirkaduhu kala qarsadaan intaynu u gudagelin muuqaalka fadlan daawade subscribe noo dheh channelka mahadsanid $200 bilyan ayay sanad waliba soo xareysaa Coca-Cola warshada caalamiga ah ee cabitaanada diyaarka ah ee aan khamriga lahayn ee dhalooyinka lagu iibiyo waana mid kamid ah shirkadaha cabitaanka ee ugu weyn adduunka Coca-Cola waxay noqotay qayb la yaqaan oo kamid ah nolol maalmeedka waxayna ka soo muuqataa dhammaan daqiiqadaha wadajirka ah ee nolosha casriga ah taas ayaana sharaxaysa xaqiiqo xiiso leh luqado aad u tiro badan oo dunida looga hadlo Coca-Cola wali waa mid kamid ah magacyada si fudud lagu garan karo caalamka oo dhan midda kaliya ee ka horeysa waa ereyga okay oo qof waliba garanayo laakiin inkastoo ay sidaas u caadi tahay waliga ma isu weydiisay sida Coke aad mar walba cabto dhab ahaan loo sameeyo si ay u gaarto macaamiisha Coke waxay martaa hanaan warshadeed aad u adag isku darka sayrabka iyadoo la raacayo qaacido sax ah nadiifinta biyaha si ay ula jaanqaadaan heerarka tayada xakameynta heerkulka iyo nadaafadda kadib waxa si sax ah loogu daraa carbon dioxide si loo abuuro xumbada caanka ah ee marka la ruuxo cabitaanka ka hor inta aan la buuxin la daboolin lana dirin fiidowga maanta waxaan sahminaynaa geedi socodkan oo dhan safarku wuxuu ka bilaabmaa qaacido sir ah oo markii ugu horeysay la sameeyay sanadii 1886 magaalada Atlanta Georgia oo markii dambe noqotay xarunta shirkad cabitaano oo caalami ah sheekadu waxay ka bilaabataa Dr. John Pemberton oo ahaa dhakhtar iyo khabiir chemistry iyo dawada khamriga ah ee la oran jiray French wine of coca taasoo ahayd khamri lagu daray caffeine iyo ka soo saaridda caleenta coca waxa loo suuqeyn jiray dawo wax walba daweysa laga bilaabo madax xanuunka iyo daal ilaa dhibaatooyin shakhsiyadeed sabab fudud oo ah inay ku jirto cocaine markuu ogaaday inuu heli karo macaamiil aad uga badan isagoo ku iibinaya cabitaan qiimo ka yar $1 oo lagu cabo Fontaine halkii uu ka iibin lahaa dawo qadhaadh oo $1 ah Pemberton wuxuu bilaabay inuu wax ka bedelo qaacidada isagoo ku shaqeynaya qol yar oo ka dambeeyay farmashiyaha wuxuu ka saaray khamriga si uu ugu iibiyo qof walba sida caruurta wuxuuna qadhaadhkii ku daboolay sonkor badan balse wuxuu sii hayay ka soo saarista caleenta coca taasoo xilliga sharci ahayd Pemberton wuxuu dhintay ka hor inta uusan arkin cabitaankiisa oo caan noqday ganacsadaha Asa Candler ayaa iibsaday shirkadda wuxuu lacag badan galiyay xayisiinta wuxuuna dadkii siin jiray cabitaan bilaash ah oo foontenyada lagu cabo isagoo u ogolaaday macaamiisha inay bilaash ku tijaabiyaan oo ay la qabsadaan Coca-Cola si degdeg ah ayuu uga baxay bilowgeedii yaraa ee ahaa $50 sanadkii waxayna horaantii 1900 noqotay mid kamid ah cabitaanada ugu caansan Mareykanka intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka shirkaddu waxay Coke jaban siisay askarta Mareykanka waxayna dhistay warshado aad u badan oo gurguuro u dhow goobaha dagaalka kadib warshadahaas badankood waxay noqdeen kuwo joogto ah oo ku yaala dalal kale taasoo Coca-Cola ka dhigtay cabitaan caalami ah dunida oo dhan in ka badan 1 bilyan oo adeeg Coca-Cola ah ayaa la cabaa maalin kasta shirkaduna xitaa waxay si kalsooni leh u sheegtaa in alaabteedu gaarto 99% dadka dunida laakiin inkastoo ay sidaas u baahsan tahay marka wax walba la eego Coca-Cola inta badan waxay diiradda saartaa hal shaqo oo asaasi ah samaynta bilowga aad ku cufan iyo cabitaanka kaasoo loo yaqaan beverage concentrate dunida oo dhan waxaa jira qiyaastii 19 xarumood oo shahaado haysta oo ku takhasusay samaynta concentrate-ka kuwaas oo loo yaqaan concentrate plants gudaha warshadahan maadooyinka si taxaddar leh ayaa loo miisaamaa lana isku daraa iyadoo la raacayo qaacidada si loo sameeyo saldhig concentrate-ka kadibna waxaa lagu raraa fuustooyin caag ah ama weelal waaweyn waxaana loo diraa shirkadaha sameeya cabitaanka si loo khafiifiyo loogana dhigo cabitaan dhammaystiran isla nidaamkaas gudihiisa Coca-Cola waxay sidoo kale soo saartaa qaab kale oo loogu talagalay adeega Fontaine-ka sayrab ku jira bac xiran oo sanduuq kartoon ah ku dhex jira isku xir ayaa lagu rakibaa bam ayaa sayrabka ka soo jeeda kadibna waxaa lagu daraa biyo iyo carbon dioxide si cabitaanka loogu shubo si toos ah Fontaine-ka qaabka baakadahaas waxaa la yiraahdaa pack in box qaacidada Coca-Cola waxaa badanaa lagu tilmaamaa inay tahay mid kamid ah siraha ganacsi ee ugu adag taariikhda Mareykanka inkasta oo maadooyinka guud la shaaciyay haddana hal qayb
ayaa si ula kac ah u ah mid aan caddayn oo la dhaho natural flavors. qaybtaasina waa sirta ganacsi ee Coca-Cola taasoo la micno ah in si cad oo faahfaahsan loo sheegin waxa ku jira. kadib concentrate-ka sirta ah ayaa loo diraa in ka badan 900 warshadood oo buuxiya cabitaanka oo dunida oo dhan ku yaal, badankoodna waa shirkado madax bannaan. mid ka mid ah warshadaha ugu casirsan ee shabakadda Coca-Cola wuxuu ku yaalaa Marriott, Georgia. warshadan waxay shaqaysaa 24 saac maalintii 5 maalmood toddobaadkii, waxayna soo saari kartaa ilaa 10 milyan oo adeeg cabitaan ah maalintii. halkan shaqada ugu horeysa ee buuxiyuhu ma aha ikhtiraacida kooga, balse waa inuu ka dhigo concentrate-ka cabitaan dhammaystiran. waxay ku daraan biyo iyo sidoo kale macaaneeye, kadibna si sax ah ay carbon dioxide ugu daraan si ay u sameeyaan xumbada. aaga isku darka 5 taangi oo concentrate ah ayaa soo saari kara in ka badan 250,000 oo galoon oo Coca-Cola ah. inkastoo shaqaaluhu maalin kasta ag joogan taangiyadaas waaweyn, haddana intooda badan waxay diiradda saaraan qaybtooda shaqo, bamgaraynta sayrabka, hubinta tilmaamaha iyo la socodka dhaqdhaqaaqyada. qaacida sirta ahi wali waxay u egtahay albaab qufulan oo ku jira sanduuq sir ah. waxay maamulaan habka, balse qofka ka shaqeeya qaybta wax soo saarka ma yaqaan waxa dhab ahaan ku jira concentrate-ka. si loo hubiyo in Coke laga sameeyay Marriott uu dhadhan ahaan la mid yahay Coke meel kasta oo dunida laga sameeyo, warshadu waa inay xilisaa dhibaato u muuqata mid fudud balse aad u adag. Coca-Cola qiyaastii 90% waa biyo. biyahana weligood isku mid ma aha, maadaama ila kasta oo dareere ah leeyihiin ur, dhadhan iyo macdan u gaar ah. warshadan biyaha waxaa laga soo saaraa ceelal ku yaala dhismaha gudihiisa, gaar ahaan kayd biyo oo 800 feet hoos ugu jira dhulka. laakiin ka hor inta dhibic kaliya aysan la kulmin concentrate-ka biyaha, waa in la marsiiyaa hanaan dib u dejis ah. waxaa lagu daraa jeermis dile, kadibna waxaa la mariyaa shaandhayn aad u khafiif ah oo ka saarta wasakhda, macdanta dheeraadka ah iyo xitaa dhadhanka yar ee biyaha asalka ah, si ay u noqdaan biyo aad u nadiif ah oo aan lahayn ur ama dhadhan. ka sokow biyaha, waxaa jira hab kale oo muhiim ah oo keena macaanka Coca-Cola. sayrabka macaaneeya dalal badan, macaaneeyaha ugu weyn weli waa sokorta canabka. laakiin gudaha Mareykanka Coca-Cola badanaa waxay isticmaashaa high fructose corn syrup. sababta ugu weyna ma aha dhadhanka, balse waa qiimaha iyo helitaanka. corn syrup-ka waa sahlan tahay in la helo, saahidiisuna waa joogto, iyadoo ay sabab u yihiin kaalmada beeraha iyo canshuuraha sokorta dibadda laga keeno, taasoo ka dhigta mid ka jaban sokorta. warshada corn syrup-ka waxaa laga soo shubaa gawaarida taangiyada ah, waxaana lagu kaydiyaa taangiyo waaweyn. hadda oo aan haysano qaacidada sirta ah, aynu galno warshada, aynu wada aragno sida dhalo kasta oo Coca-Cola ah loo sameeyo. wax walba waxay ka bilaabmaan sayrabka sirta ah ee Coca-Cola oo laga keeno forklift iyadoo ku jirta weelal caag ah iyo haamo waaweyn. macaaneeyaha iyo concentrate-ka ayaa lagu daraa taangi 5,000 oo galoon ah si loo sameeyo sayrab isku dhafan. in ka badan kala barna waa macaaneeye. Coke sir ah ayaa lagu geliyaa kombiyuutarka xakamaynta biyihiina waxay bilaabaan inay soo galaan taangiga. kadib sayrabka waxaa lagu khafiifiyay qiyaastii 5 jeer oo biyo ah. qadar sax ah oo macaaneeye dabiici ah ama mid macmal ah ayaa lagu daraa iyadoo ku xiran tahay nooca cabitaanka. tusaale ahaan, corn syrup ayaa loo isticmaalaa Coca-Colada caadiga ah, halka aspartame loo isticmaalo Diet Coke iyo Coke Zero. isku darka biyaha iyo sayrabka si fiican ayaa loo walaaqaa, kadibna waxaa loo diraa taangiyo kale oo batch ah. kadib isku darku wuxuu u socdaa carbonator-ka, halkaasoo carbon dioxide lagu daro, taasoo abuuraysa dhawaaqa caanka ah ee markaad furto dhalo ama qasacad. Coke wuxuu ka soo galaa korka, carbon dioxide-kuna dhinacyada ayaa lagu daraa. inkastoo aanad arki karin xilliga xumbada gasho gudaha carbonator-ka, carbon dioxide cadaadis sare ku jira ayaa lagu khasbaa inuu ku milmo dareeraha. carbon dioxide waa gaas si gaar ah ugu milmo biyaha. isla qiyaastaas, carbon dioxide ayaa ka badan nitrogen ama oxygen ku milmi kara biyaha. marka habku dhammaado, Coke wuxuu qaatay qiyaastii 3 laab muggiisa carbon dioxide. taasi waa gaas aad u badan, cadaadiskuna wuxuu dedejiyaa milanka carbon dioxide. qiyaastii 30% carbon dioxide-ka warshadan lagu isticmaalo waa mid dib loo warshadeeyay, laga soo qabtay hawada iyo ila qiiqeed. safka hore waxaa ka rakiban marawaxado waaweyn oo hawada ku riixa qalabka qabta carbon dioxide. marka hawadu marto, carbon dioxide-ka waa la qabtaa oo la keydiyaa. nidaamkan wuxuu soo celin karaa ilaa 1900 tan oo carbon dioxide ah sanadkii. kadib carbon dioxide-ka
waa la sifaynayaa qoyaankana waa laga saarayaa waxaana lagu cadaadiyaa taangiyo kayd ah ka hor inta aan dib loogu isticmaalin wax soo saarka ka hor inta aan dhalooyinka la buuxin waa in si buuxda loo nadiifiyaa mashiin ayaa rogo dhalo kasta oo ku buufiya biyo la shaandheeyey kadibna dib u toosiya markaas ayaa buuxinta bilaabmata kooga waxaa lagu shubaa dhalooyin iyadoo cadaadis la saaray heerkulka mashiinka buuxinta waa qiyaastii 5 digrii si cabitaanku u deganaado haddii koogu kululaado wuu xumboobayaa mana degi doono mashiinkani wuxuu buuxin karaa ilaa 550 dhalo daqiiqadii kadib mashiinka daboolidda ayaa xiraya dhalo kasta si carbon dioxide-ku uusan u baxsan dhalooyinka waxaa lagu dhijiyaa calaamadda casaanka iyo caddaanka ah ee caanka ah kadibna waxaa la mariyaa qalab kulaylinaya si heerkulka dib loogu celiyo caadi si aysan dhalooyinku u dhididin nidaam baaris ah ayaa hubiya dildilaaca ama dabool dabacsan dhalo kasta oo cillad leh si toos ah ayaa looga saaraa meesha qayb kasta waxaa lagu hubiyaa shaybaarka halkaas oo lagu cabiro heerka carbon dioxide-ka iyo macaanka kaasoo lagu cabiro purity Coca-Cola dhammaystiran macaanka waa qiyaastii 10% kadib dhalooyinka waxaa loo diyaariyay xirmooyin robodyo ayaa isku hagaajiya waxaana lagu raraa pallets si loo diro bakhaar qiyaastii 2,000 mitir oo laba jibaaran ayaa leh in ka badan 14,000 meelood oo pallet ah waxaana dhaqaajiya cranes automatic ah oo gaaraya 131 feet oo dheerar ah warshadu sidoo kale waxay buuxisay dhalooyin galaas ah iyo qasacado aluminium ah iyo cabitaano kale sida Fanta, Sprite, Kinley Tonics ugu dambeyn alaabtan waxaa lagu raraa gawaarida waxayna gaaraan bakhaarada si loo iibiyo sidaas ayay Coca-Cola ugu timaada warshada ilaa bakhaarka haddii aad halkaan la soo gaartay aad ayaad u mahadsan tahay daawade haddii jirto wax maanka ka gooxaya oo aad rabto inaan ka soo hadalno comment noogu reeb mahadsanid